magaalada Boosaaso markaan imanayay qisa ay keentay runtii rabay idin la wadaago intaan gabayga canaanta iyo runtii dhacdo kale oo aad u cajiib badan inaga yaabin doonta aad la wadaagi doono anigoo magaalada Hargeysa jooga ayaa waxa ila soo xiriiday maamo khayr lah siya halkan joogta maamo Farxiyo aad baan u salaamiyaa waxay igu tiri waxaan haystaa 2 caruur ah oo aragga naafaka ah waxaan ku yiri ibar inanteeda yar waasan ayaan fadlan sacabka u tuma waa 7 sano jirtaa waxay i weydiisay maalinta koowaad aan la hadlay anigu waxaan doonayaa inaan wax barto wax bar maadaama aad tahay qof wax bartay waxaan isweydiiyay ma qof kaligiis ayaa wax barasho qof u sameyn kara maya waxaan isweydiiyay kala magaalada Boosaaso joogtaa oo ahayd ishii dhaqaalaha sababta iskuul ay u weyday ayaan maxay tahay sababta darteeda ayaan halkaan u imiday una jeclaystay inaan la wadaago gabayga canaanta gabaygaas ma dhamayn doono laakiin ay kamid ah waxay leedahay in kamid ah dooriina in la wadaago hal dooriyaha daacay tahay samawdoodaya ama duubkooda iyada titiyo dawlad talinaysa ama adigiga xooto damiir wali ku diiraayo dadaalkiina naafada maxaa loogu dari waayay dulka dhaga dalooliyo kuwaan maqalka loo daynin daymada kuwaa laga xidhay muuqa laga daahay duubiyada kuwaa laga jareen daqiiqan gaadhaynin oo dabaqyada ay gasheen daana kori waayay dulmi iyo waxay tabanayaan duudsiiyo liide daweeyay tacliinta maxaa loogu dari waayay degta iyo kuluududka iyo dusha xamaal saaro ama uu daasadaha hortadeeda warsi meeraysto ama uu dafiyahaad sidee dollar ula boodo ama uu gaadhabo dabtiyo deeradiyo cawsha dadka kale xal baa loo dayaa dawga nololeede ayagaan darsiga loo dhigoon diraya mooyaane daraf nolosha kuu buuxinayn dacal bannaanaaye dugsiyey tacliinta maxaa loogu dari waayay su'aalahaas iyo kuwa kale oo badan oo aad isweydiin kartaan ama aad dareemi kartaan waxaan u baahanahay jawaabahood inaan helo waxaa qiiro runtii ah magaalada Boosaaso inaan lahayn iskuul ay leeyihiin dadka aragga naafada ka dhammaan halkan maanta waxaa joogta ganacsatadii waxay ku faanayeen inay ganacsi sameeyeen laakiin kuma faanayaan inay dad soo saareen oo dad wax bareen warganacsigu lacagtu waxay lacag ku tahay marka dadka la geliyo ee bulshada maskaxdooda la koriyo Boosaaso waxa la yiraahdaa Boosaaso deeqa talaba dad gaaray deeqda Boosaaso waxaan rabaa inaan inaga qiiraysiiyo oo aan erayadii qalbigayga dhibay oo Boosaaso ay keenay Boosaaso waxaan soo socday 2 maalmood 3 maalmood baan soo socday Boosaaso sababtii Hargeysa keentay oo cidi imaal gelinaynin halka ay keentay ayaan rabaa in la wadaago ayaan baa rabaa in mikrofoonka u dhiibo oo aan ku idhaahdo bal dadka erayada iga keentay Hargeysa iga keentay bal dadka ku dheh oo la hadal marka ila soo dhaweeya xaq soo saar balan هذا ما شاء الله جوي da'yartaa dhulkeediyo dudaday ku dhaatiyo dacda hooyo jiifto wili dalan dalbaran iyo dalab iyo ilmaan ahay gabar aragga daymada rabbi uu ka daahiyo indhoolkaa damaan ahay ruux damaca sareeyiyo hamid durugsan yeesho duruustii aqoontii doonaya baan ahay dalkaygiina kama helin daryeelkaan u baahnaan maantana dahuubiyo dacwadiyo su'aaliyo fariin baan u dirayaa dul ahaan bulshada iyo dawladayda wacan iyo madaxweyne daniyow doodaydu waxay tahay ama deeq waxbarashiyo orda dibadda ii jira ama degmadaan ku noolaayo degalkayga jooga ee dugsi kaale ii fura darsi aan ka baran karo
أنت سمعها شوي إذا نجت فينا وما حسنتين أيام الله يا ما شاء الله أنت الزجاجي